قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا إننا قوم خلقنا قيمون إننا قوم خلقنا قيمون. بسم الله الرحيم. الشيكدان waxay dhacday sheekayashan badan aan ka sheekeeyo waa sheekayashii dadka muslimiinta iyo taariikhda laga badana kutubaha taariikhda lagu arkaa. sheekadan waxaa la yiri waqtiga xashka ayaa waxaa la yiri nin dhalinyaro oo la yiraahdo maxamed bin cabdilbaaqi al-ansaari ninkaas waxaa la yiri xashku rabay. dadkii hore waxay sameyn jireen cilmiga markay rabaan inay bartaan oo waliba axaadiista tafsiirka waxay tagi jireen Makka iyo Madiina because xashka waxa dadka muslimiinta meel arkay ka imaadaan marka meeshaas waxay tahay meel dadka ku wada kulmaan. marka waxaa la yiri ninkan dhalinyaro ahay meeshaas uu joogay xashka asoo marka meel socdo ayuu wuxuu arkay kiis yar oo guduudan oo xariir ah oo dhulka yaalo. asagana marka gaaja hayso cashirka markuu akhristo uu gaajo qabatay wuxuu dhahay bal meelaha soo soco lacala inaa wax heshido ama wax qof wax ku siiyo. bas kiiskii uu arkay wuu qaaday wuu furay kiiska guduud buu ahay oo mara xariir ah. markuu furay wuxuu arkay waxaa ku jiray silsilad oo lulu laga sameeyay oo yani hadda يعني دائما كوكا قالسين يعني لولو مركا أدو قرح بدناي وأركي بس كيسكي كوعليي السجو لهايو الله قف بكون دعية إسكاله وحو أركي نين لهايو الله ما ركتين كيش جدودن وماشان قفيا أركي بس وأي مد وحو يرسو إجا كيس كاجا مركز يحير كيس جدودن واي مركز يوري محاكو الحجرة مركز يوري سلسلة دا كجرتي oo kool oo qurux badan oo lulu laga sameeyay. bas wuxuu yiri ho markaas yiri maya aniga waxaan dhahay yiri qofkii ii sameeyay lacag siina ma yiri adaa iska lahayd dhulkan ka helay waa ku siiyay marka lacagna kaamara biye waa ku soo xiliyay amaanadaada bas yani kiiskaaga waa ku siiyay oo iska dhaqaaqay. waxaa la yiri ninkii la dhigi jiray qaadi maxamed bin cabdilbaaqi nin dhalinyaro ahaay cilmigii oo meeshii ku sii bartay muddo ka soo wareegtay maanta dambe wuxuu siiray meeshan bal magaalo kale iska aad. waxaa la yiri doon buu koray doontii markuu koray ayaa doontii koray uu badda cabaar ku jireen waxaa la yiri doontii yani way jabtay. asaga marka meel badu u dhawaay meel xeeb u dhawaay wuu soo dabaashay xeebtii uu soo imaaday. markii dambe dad maxay ahayd cabaaru haddana socday masaajid uu arkay. alla wuxuu siiyay masaajidku iska galay. markuu galay dadkii waxaa la yiri oo meesha waa ku cusubtay magaalada ha waa ku cusbahay way soo dhaweeyeen cunta siiyeen dharay siiyeen. markaasito salaadii la gaaray. salaadii markii la gaaray markay tukadeen ayaa wuxuu maqlaa dadka dhahayaan الله وحلو بهنيا قف دتك صلاة التوجيه قرآن يقانو مركز سوري أنا هو سمين كرو أنا نتوجين كرو الله ما شاء الله أو حافظ ما طايها قرآن واحد سنة أو علمي الدين حتى وانا قانا تفسير كان أقانا فقه كان أقانا الله ما شاء الله وكوبا هاي الله ما شاء الله بس ماشي وحلير إمام كان نقضي صلاة دي دتك توجيه تفسير كدتك أقريا مركز سالير أو وإحنا واقر قرطان ما هو مركز سور ها alla caruurteena oo ku keensanayna wax noo bar meeshii waxaa la yiri famous aanu ka noqday ilmaha loo keensadaa dadku wax baraa maasha Allah magaalada dhan ay jeclaatay. muddo markuu joogo waxaa la yiri waa loo yimid waxaa lagu yiri sheeqo nin wanaagsan baa tahay fiican anaga ninkii imaamka masaajidka intaad adi imaan ka hor oo nin baa noo joogi jiray oo imaam aad u fiican hal gabar uu ka tagay gabadhaasna yatiim waa hadda agoon waaye bal gabadha ma noo guursanaysaa hayuu yiri gabadha reer fiican yani ha aabaheeda waxaa la yiri nin caalim u ahay nin fiican waaye bas wuxuu yiri hay waan guursanayaa. waxaa la yiri arooskiyaa loo dhigay gabadhii la aqal galay
gabadhii habeenkii markuu la soo aqalgalo guriga timid habeenkii waxay xiran tahay kuushi oo qurux badan bas wiilkii uu iyaduna sas u fiiriyaa gabadha waxay tiri maxaa dhacay aniga ma fiinis kuushan bas way xanaaqday guriga ka baxday bas way carruurtay adiga subaxdii loo yimid waxaa la yiri maxaa gabadha way kaa diday gabadhii way xanaaqday maxaa markaasuu yiri wuxuu yiri haddaan iga sheekay sheekada waa ila yaabaysid maxaa dhacay la yiri wuxuu yiri gabadha kuusha xiran tahay waxaan soo xasuustuu yiri intaas sano ka hor anoo xaramka oo maka joogo oo meesha anoo oo arday iska oo iska yaaban uu yiri habeen oo gaajadii qabatay aan isla yiri banaanka soo soco kiis baan arkay kuushan naftigeeda oo laga sameeyay luulugaas ayaan arkay ninbaa iska lahay waan u helay waan u celiyay marka wuxuu yiri cajiib waa kuushan way ayada inta taagan oo egtahay markaasaa waa la takbiiriyay allahu akbar markaasuu yiri hee maxaa dhacay waxay dhaheen waxaan la yaabnay gabadha aabaheeda markuu xajka ka soo noqday ayuu wuxuu dhihi jiray la yiri markuu salaada dadka tujiyo marka kadib ayuu wuxuu ku duceysan jiray ilaahayow xajka waxaan ku soo arkay wiil fiican oo taqi oo baari ilaahu wiilkaas i kulmisi gabadheedii aan ku aaminay marka maanta waxaan aragnay asoo dhintay inuu ilaahay ducadiisii u waafajiyay oo adiga gabadhiisa aad guursatay sheekadana maanta intaas ku dhamaatay